Rooda Cali Fidin oo kamid ah qurba-joogga reer Somaliland ee ku dhaqan dalka dibadiisa gaar ahaan wadanka isku tagga Imaaraadka Carabta ayaa maanta gaarsiisay kaalmo ballaaran dugsiga Tabantaabo oo ay wax ka bartaan carruur agoomo iyo rajo iskugu jira kuwaasi oo ka kooban dhammaantoodba hablo. Kaalmadan oo ahayd lacag naqad oo ay haweeneydani guddoonsiisay carruurtaasi ayaa waxa ay si rasmi ah uga timi hablo ka soo jeeda dalka Khaliijku ay isku asxaab yihiin inantan Rooda Cali Fidin iyadoo carruurtan halkaas uga soo jeedisay hadallo guwaaba iyo dhiirigelin iskugu jiro dhammaantoodba salka ku haya dhismaha mustaqbal ee ayahooda dambe. Rooda Cali Fidin iyadoo geesta kalena la hadlaysa walaalaha muslimiinta ah ee ku dhaqan daafaha dunida gaar ahaan kuwa khayrka jecel ayaa waxa ay hadaladeedii ka mid ahaa habla asxaab ah sanad ku sheegay dad walaalo abaanu nahay jecel dadka Soomaalida dhibaatadan qabsatayo maxay ahaaytay jafaafka ku dhacay Soomaaliya in dadka ka caawiyaan wixii caawinadaas waxay ku xiran tahay carruurta agoonta ee dadka jilicsan dadka dhulka yaala ayaan jecelahay inaan caawino مساعدات قارسينو وحي أنا كارينو أنا أصحابتي دتك أنا كسر أوروريناي مركا ما أنت لعتنا سوق هذي وحنا سوق هذي هبلا أنا أصحابنا هاي يوم هذا ما دعا هبلها أغونتا مير كسبة أغونها شو قام قاعد دبر عمير أنا كتجيني ما تشوفه أنتي أنا كارينو كعنتي دقاري سي من مالتي دلقة بلابو إلى مالك الماندا وحنا أريبانو قلنا فربضان راشين بانو بحنا راشين بانو قايبنا عروتين وحنا دولنا إن شاء الله قعنتي إناني كم marka maanta xoogay lacag ka u qaybinayna ma waxaan ka dalbanayaa bas inaad u ducaysaan qofkii soo dhiibay lacagta ay kamid yihiin Fawziyad Meheri Hamda iyo wixii iyo aabahood in insha Allah Ilaahay xanuunka ku qaado اللهم صل على سيدنا محمد. المبلغ اللي معانا الحين هو $2000 بما يعادل 7000 درهم إماراتي. فالفلوس اللي وسعناها في مدينة برعو تقريبا ما يعادل حوالي 50,000 درهم بما يعادل 50,000 درهم أو أكثر. إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بيعنا وبيعين الجماعة هذول اللي أرسلوا الفلوس واللي اعتمدوا علينا واللي وثقوا فينا إننا نوصل الفلوس هذه لكل محتاج لكل يتيم في بيته في مدرسته. فالحين في هالوقت إحنا واقفين في المدرسة جينا ندق على كل باب. فأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويساعدنا على أداء هذه المهمة. haweeneydan oo ah maamulaha gacanta ku haysa carruurtan ayaa iyaduna waxay si rasmi ah ugu mahad celisay Rooda iyo asxaabteeda oo kaalmadan ballaaran si rasmi ah u soo gaarsiiyay maanta iyadoo Ilaahayna uga bariday meesha ay ka soo saareen lacagtan ay soo gaarsiiyeen carruurtan u baahnayda in Ilaahay ugu bedelo abaalgud fiican. Rooda Cali Fidin ayaa tan iyo wixii ka dambeeyay maalintii ciidii waxay si rasmi ah ugu qaybinaysay gudaha magaalada Burco deeqo kala duwan oo dhammaantoodba ay salka ku hayaan taakulaynta dadka tabaalaysan waxaana ay haweeneydani si rasmi ah u booqanaysay goobaha ay ku dhaqan yihiin dadka maskaxda ka jiran ama base qaba xanuunka maskaxda xarumaha agoomaha iyo waliba goobaha ay ku dhaqan yihiin dadka danyarta ah ee jilicsan waxaana ay kaalmooyinkaasi ay qaybinaysay muddooyinkii ugu dambeeyay ay ka koobnaayeen raashin xoolaha ulxada iyo waliba lacag kaasha waana markii ugu horeysay haweeneydan iyo asxaabteedu ay si rasmi ah u soo gaarsiiyaan kaalmo sidan u ballaaran dadka ku dhaqan gobolka Togdheer. waa Sabri TV-ga qaranka Burco.